waxaynu hayaa xamse cali bulbul wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa maanta waxa uu xadhiga ka jaray diyaaradda Ultimate Air oo ah diyaarad imika ka shaqeysa Soomaaliland oo rakaab 19 qof qaadi doonta halkii uu ka qaadi jirtay rakaab dhan 9 qof. diyaaradan ayaa waxay ka kala shaqeysaa guud ahaan gobolada Soomaaliland iyo dalalka Jumhuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland. wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland oo munaasabad ballaaran oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee madaarka magaalada Hargeysa ka hadlay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xadhiga ka jaro diyaaradan Ultimate Air isagoo sheegay diyaaradan imika inay qaadi doonto rakaab dhan 19 qof. isagoo ka hadlaya wasiirku waxa uu yiri diyaaradan qaada 19 passenger oo bedeshay diyaaradii hore ay lahayd Ultimate ee imika naga tagtay. shirkadani waa shirkad Ultimate Air ku soo biirtay shirkadaha ka ganacsada hawada Soomaaliland. runtii waxay mudnaan ku leedahay oo shirkadani gaar ku tahay iyadoo dabooleysa baahiyo iyo adeegyo aad loogu baahnaa gaar ahaan in la isaga goosho gobolada Soomaaliland madaaradoodu dib u irmaanadaan sida madaarka Boorame Burco Argaabo iyo Lascaanood. mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Ultimate Air waxaanu ku dheeraaday sidoo ugu faraxsan yahay in shirkadoodu ay keento mid ka mid ah waaweyn ee ka howlgala adduunka oo diyaarad cusub oo timi shirkadda Ultimate Air saddex imika duway baydanka leeyahay 3 bilood tijaabo abaanu bilownay. tijaabadii way ka baxday marka diyaarad cusub baanu bilownay oo joogto ah oo isaga gooshaysa hadduu Ilaahay yiraahdo Hargeysa iyo Djibouti hadday noqoto rakaab hadday noqoto kira gaara oo chartera. wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliland oo safar shaqo ku jooga dalka Ingiriiska ayaa waxa uu kulan la qaatay jaaliyada ku nool wadankaas Ingiriiska Soomaaliland. dadweynaha reer Soomaaliland ee degan magaalada London ayaa kulan ballaaran waxay kula yeesheen wasiirka macdanta iyo biyaha iyo tamarta mudane Xuseen Cabdi Ducaale. bulshada reer Soomaaliland ee degan magaalada London iyo wasiirku waxay soo wadaarsadeen xog waran labada dhinac. sidoo kale waxaa halkaa hadallo qiimo leh ka soo jeediyay safiirka Soomaaliland u fadhiya wadankan Ingiriiska mudane Cali Aadan Cawaale. ayaan oranayaa ku bilaabay waxaan leeyahay mudane wasiir dadka reer Soomaaliland ee halkan jooga halkan fadhiya ee soo camiray waxay xiiso qabaan oo ay ka warhayaan shaqada wanaagsan ee qarankan Soomaaliland u qabatay iyo taariikhda gacanta ku hayso. waxyaabaha ugu muhiimsan halka maanta u yimid waxay ku taxalluqsanaayeen wada hadallo sharaa'icda shirarka loo socday qaran barasa xajooyinka negotiation kula jiray waana doonayaan dalka usoo jeedno iyo kuwa hore dalka inooga shaqaynayay oo ah saldhigyadooda halkan Ingiriiska ay yihiin oo aan doonayay in shaqadii halkay marayso iska wareysano iyo staatuska iyo progress shaqada u socoto. markaas intaas ayaa runtii ugu badnayd. Abdulrahmaan Shaqale TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada London. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee wadanka waxa ay siiyeen gudida joogtada ah ee golaha wakiilada. taliyaha ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland Sareeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan waxa uu warbixintiisaas ku sheegay in ay jiraan caqabado soo noqnoqda oo ay ka howlgalaan ciidamada booliska Soomaaliland kuwaas oo ay ugu horeeyaan khilaafka iyo muranka ka dhasha mulkiga dhulka bannaan ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dhalinyarada gidaaradu ay hoyga u ahaayeen oo iyaga muddooyinkan dambe uu dhibkoodu ka yaraaday ciidanka booliska kadib markii badankoodii lagu xareeyay xeryaha taakulaynta. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland waxa uu sheegay in guulo la taaban karo laga gaaray horumarinta tayada ciidamada booliska Soomaaliland muddadii ay xukuumadda cusub ee xisbiga kulmiye xilka ay haysay isla markaasina boqolaal dhalinyaro ah lagu soo daray safafka ciidamada booliska kuwaasi oo la siiyay tababarkii laga maarmaanka u ahaa gudashada xilkooda iyadoo taliyayaasha saldhigyada gobolada iyo degmooyinkana la siiyay tababaro dhinaca xuquuqda aadamaha. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland uu ka hadlayay dhinaca dhismayaasha ayaa waxa uu sheegay in xarumo booliis laga samaynayo degmooyin ka mid ah dalka korna loo qaaday tirada hablaha booliska ah ee ciidanka ku soo biiray. dhinaca kale taliyaha ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay kiisaska kala duwan ee dalka ka dhaca
kuwaasi oo uu tilmaamay sida dhaqsaha ah ciidamada bilayska jamhuuriyadda somalilan ay uga howlgalaan islamarkaasina ay u soo qabtaan ciddii iyagu geysataa faldambiyeedyo kala duwan waxaana uu tilmaamay in ay taasina ka turjumayso kartida ciidamada bilayska jamhuuriyadda somalilan. ururka haweenka qaranka ee naawe gobolka saaxil ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ku doorteen hoggaan cusub. geesta kalena golaha deegaanka ee magaalada berbera ayaa soo gabagabeeyay kalfadhigoodii labaad. waramuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada berbera nooga soo diray mukhtaar cabdiraxmaan. waxaana halkaasi gudoomiyaha ururka qaranka ee now loo doortay in ay gudoomiye noqoto saade jaamac aadan halka gudoomiye ku-xigeenka ururkaasina loo doortay xalimo ismaaciil jaamac. waxaana labadaasi xubnood ay kala hayeen gudoomiyihii hore ee ururkaasi iyo gudoomiye ku-xigeenkii labadii sano ee hore soo hogaaminayay. kalfadhigaasi lagu dooranayo xubnahaasi hogaanka ururka qaranka ee now ee gobolka saaxiil ayaa waxaa ka soo xaadiray 23 xubnood oo ka mid ah ururkaasi qaranka ee now waxaana xubnahaasi u codeeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka 18 xubnood oo ka mid ah 23kaasi xubnood ee saaka soo fadhiistay kalfadhigaasi lagu dooranayay xubnahaasi ururka qaranka now hogaamin doona. gudoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa si weyn ugu mahadnaqay xubnahaasi ka qayb qaadanayay doorashadaasi xubnaha hogaamin doona ururkaasi qaranka now ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka isagoo u soo jeediyay in ilaahay uu xilkaasi u fududeeyo. waxaa isaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyey islamarkaana sidaasi oo kale u soo dhaweeyey xubnahaasi ururka qaranka ee now islamarkaana tilmaamay inay la shaqayn doonaan gudoomiyaha golaha deegaanka berbera cabdishakuur maxamuud xasan. iyaduna waxaa halkaasi hadal ka soo jeedisay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee arrimaha haweenka amaal xaaji miisaan oo iyana ka warantay doorashadan iyo habka ay usoo gabagaabiyeen iyagoo tilmaamay in si xor oo xalaala ay u doorteen xubnahaasi iyagu fadhiyey kalfadhigaasi lagu dooranayay xubnahaasi hogaanka ururka qaranka ee now ee gobolka saaxiil. iyaguna sidoo kale halkaasi hadalla ka soo jeediyey anise nuur cigaal iyo sidoo kale xubno ka mid a ururkaasi qaranka now oo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay doorashadaasi xubnuhu ay ku dooranayeen hoggaankaasi cusub islamarkaana tilmaamay in ay mar walba ay garab taagan yihiin lana shaqayn doonaan. waxaa iyaguna sidoo kale halkaasi hadalla ka soo jeediyey xubnahaasi la doortay ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo ballan qaaday in si daacadnimo ay ku jirto ay ugu shaqayn doonaan xilkaasi loo doortay. waxaa maanta magaalada berbera kusoo gabagabaysmay kalfadhigii xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera kadib markii uu soo socday muddo 7 islamarkaana halkaasi xildhibaanadu ay ku faraaqeynayeen howlahaasi ay u xilsaaran yihiin ee degmada berbera. gudoomiyaha golaha deegaanka berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo halkaasi ka akhriyey qodobada muhiimka ah ee ay ku ansixiyeen intii uu kalfadhigaasi socday ayaa waxa uu tilmaamay inay ku ansixiyeen mushaar kordhintii 50% ay u sameeyeen shaqaalaha dowladda hoose ee berbera iyo sidoo kale gurnooyinka joogtooyinka ah oo iyaguna ay ku ansixiyeen in ay golaha deegaanka berbera ay dowladda hoose ay bixiso. waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay kalfadhigaasi intii uu socday ay ansixiyeen sidii xoolaha looga saari lahaa magaalada berbera si dib loogu soo celiyo bilicda berbera. mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera. aqoon isweydaarsi lagaga hadlayay xogta dhabta ah ee ka turjumaysa ardayda Somaliland iyo dugsiyada dalka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya maxamed jaamac garas. tababarkan oo iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda UNICEF ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo nuxurkiisu ah sidii loo tababari lahaa koox soo sameynaysa qiimeyn xogta dhabta ee ka jirta dugsiyada dalka. waxaana ugu horeyn ka hadashay madaxa waaxda waxbarashada ee hay'adda UNICEF Marwa Safiya Jibriil Cabdi oo tilmaamtay qiimaha uu tababarkani leeyahay xogta dhabta ee waxbarashada dalka. Axmed Quule madaxa qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka hadlay qiimaha uu leeyahay tababarkani xogta sanadeedka dugsiyada dalka. waxaana si rasmi ah u furay tababarkan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dalka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Xasan Ibrahim isagoo kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarkan inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo. hawshan innaga iskale Soomaaliya waxay tiraahdaa xog la heliya tira la heliya muqti marka xogay duwan ka dhegsanahay ahmiyadda ay leedahay xog ururinta maanta isugu nimi hawsha
abaabulkeeda qorsheynteeda iyo fulinteeda iyo taxdiisheeda wasaaradda ayaa iska leh marka maanta cidna marti hawsha ugama nihin mugti wixii ka soo baxa innaga iska leh waa hawl inagu iska lehnay mugti haddii hagaagtona inaga hagaajinay haddii wax ka qalloocdaana inagunba qalloocina mugti maanta farta ku fiiqi mayno UNICEF ama NGO ku fiiqi mayno idinka ayaa hawsha gacanta ku haya fulinteedii iyo muxuu ahaa la socodkeedii mugti marka dhammaanteen waxaa jooga wasaaradda dhexaa joogta maamulka gobolkaa jooga maamulka degmooyinkaa jooga halka fadhiya raggii khibradda walaha wasaaradda ayaa fadhiya maanta cidi kama maqnaa cid maanta kama maqnaa inay maanta garbaha qabanno aynu arrintaa tabantaabino ayaa maanta nanu ka fadhiya tababar ku jahaysan ilaalinta xuquuqda caruurta ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa warkaasina waxay noo faahfaahinayaa Maax Cabdilaahi kulan hawleedkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Save Children ee arrimaha caruurta ka shaqeysa isla markaana ay fulinaysay hay'adda African kana soo qayb galeen xubno matalaya hay'adaha dawladda ururada aan dawliga ahayn xildhibaano garyaqaano iyo arday ka socotay jaamacadaha dalka ayaa waxa lagu dirsiyay xuquuqda caruurta ay u leedahay dhalashada iyo waxtarka nidaamka dawliga ee dhalasho bixinta ilmaha marka uu dhasho waxaana falaqeyn iyo tala soo jeedin laga yeeshay sidii loo fulin lahaa hawshaasi iyadoo si wada jir ah ay uga qayb qaateen talooyinkaasi garyaqaanada iyo wasaaradaha ay khusayso ee dhanka bixinta waraaqda dhalashada oo ay sheegeen inay tahay xuquuqda aasaaska u ah wadaninimada isla markaana muhiim u tahay kala saaridda muwaadinka iyo ciddaan muwaadinka ahayn ee sifooyinka kala duwan ku jooga dalka kadib gorfayntaasi faa'iidada waraaqda dhalashada ayaa waxaa halka ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Indho oo ka waramay ka kala guurti ahaan inay dareensan yihiin muhiimadda ay u leedahay dalka isagoo sheegay in xeerkaasi uu hor yaalo golaha guurtiga kana hawlgalayaan qabyatirkiisa waxaanu talo u soo jeediyay wasaaradaha u xilsaaran inaanay dhayalsan amuurtaasi sidoo kale Kaltuun Faarax oo ka socotay Save Children ayaa iyadna sheegtay inay hay'adahan ay leeyihiin gubaabinta iyo inay gacan ka geystaan sidii xukuumaddu u hirgelin lahayd hawshaasi kulan dhalinyarada lagaga wacyigelinayay falalka tahriibta iyo argagixisada ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa warkaasina waxay noo faahfaahinayaa Jacfar Axmed Bade kulankan ay ka qayb qaadanayeen arday ka socota jaamacadaha kala duwan ee ka dhisan caasimadda Hargeysa ayaa waxa lagu qabtay xarunta Hargeysa Public Library oo ku taala xaafadda New Hargeysa ee magaalada Hargeysa ugu horreynna kulankaasi waxaa hadallo kooban ka jeediyay Sheekh Xasan Qorane Xaaji Cali oo sheegay in ujeedada kulankani ay tahay sidii dhalinyarta looga wacyigelin lahaa arrimaha la xidhiidha isqarxinta tahriibta iyo sidoo kale dhaqanada foosha xun leh ee ka soo horjeeda diinta islaamka waxa kale oo isaguna madashaasi ka hadlay Maxamed Xasan Dirir oo isaguna ah maamulaha Hargeysa Public Library ayaa uga mahadnaqay maxadka faafinta diinta islaamku doorka ay kaga jiraan wacyigelinta dhalinyarta iyo arrimaha ku taxalluqa waxyaabaha ka reeban diinta islaamka ugu dambeynna waxaa halkaasi hadallo kooban oo isugu jira dardaaran iyo fariimo kala duwan oo xambaarsan sidii dhalinyarta loo wacyigelin lahaa halkaasi uga jeediyay dhalinyarta isugu timid Sheekh Saleebaan Siciid oo ah wakiilka gobolka Saaxil ee maxadka faafinta diinta islaamka iyo sidoo kale isuduwaha gobolka Saaxil ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland dad masaakiin oo bilaa dacas oo aan sooba quraacan oo Soomaaliya oo quruun dheer ilaahay soo caabudayo tawxiid sax haystay ayay xaajiyad ku soo xareynayaan oo lagu yacaguba go'ay isqarxintu ama amaliyat al-intixaariya islaamkeena waa qadiyad muharram ka waana qadiyad asalkeedu fulinimo tahay qodobka tahriibta inoogu dambeeyo dawadiga arkay marka dhalinyarta rag idin la midaba tahriibay rag idin la mida ayaa tahriibay ragga tahriibay maxay hayaan waxaanaad ogaataa risiqa ilaahay wuu qoran haddaad New Hargeysa joogto iyo haddaad joogto New York labadaba risiq waa maktuub yani ilaah babadala risiq waa maktuub ziyaadana ma laha qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee deegaanka Ceelaf Weyn ayaa deeq biyo ah waxa ay gaarsiiyeen deegaano ka tirsan jiida deegaankaasi ee aanay roobabka gugu ka diin warkaasi oo faahfaahsan waxayna hayaa Cabdiraxmaan Ismaaciil
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Elaf Weyn ayaa maanta deeq biyo ah oo dhan 40 booyadood gaarsiiyay dadka ku dhaqan degmada Elaf Weyn ee nawaaxigeeda iyagoo kaashanaya hay'adda Care International. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل وحنا آبي من هالعلنا وأنا ما هالشيء qaar ka mid ah dadka masaakiinta ah ee aan iyagu tahli karin in ay biyo soo iibsadaan ayaa waxaan bal wax ka weydiinay sida ay u arkaan biyahan ay dawladda hoose iyo hay'adda Care International hoos garabsanaya ay soo gaarsiiyeen. الله بركي الله قولي يا سفيرانة biyaha ay soo gaarsiiyeen يا هجاء biyaha ay soo gaarsiiyeen وأنا سجت في الدولة هو yo إله الأمة أي وضعته شكوى أنا سوقت maalsiyay telefishinka qaranka Somaliland Elaf wararka kale daawadayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah xalfadan lagu calaamisaray suldaanka cusub ee beesha howlo ka mid ah beelaha Somaliland munaasabadan ay ka soo qayb galeen waxgaradka beesha culimo cuqaal aqoon-yahan haween dhalinyaro waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha Sheekh Najax Xuseen Xariid Sultan Ismaaciil Mahad Aw Faarax عقل أحمد عبدي وحاني دمانتو سلطان كعصر سلطان محمود حسين عبدي إنه دقوري كليرين إنه كشقي من نمدا باشا وحاني سوتشيدين إن لتاغير سلطان كعصر وحا سلطان كعصر لغسو دوي عيار دقامي ده وينك باشا كسو بندقين قوبتا وحانا أصير رسمي سلطان